dadka hore u marayo danihiina haybsho khamriyaanu idin hodin aad u jeedaan ee xun oo ah mid lagu ibtileeyay ummadda cabta iyo kuwa ka ganacsata waxay ku guuleysteen ciidamada ammaanku in ay soo qabtaan habeennimadii xalay saqdi dhexe amba gelinkii dambe xalay gudaha magaalada Gaalkacyo taasoo gaaraysa 200 oo dhalo oo ah hooyada xumaanta amba khamri ah ruwaanta ciidanka amnigu oo ku maasan shaqada uu qabtay shacabka la shaqeeyana aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa ha ku dhiiranayaan sida inay ula shaqeeyaan ciidamadooda ammaanka annaguna waxaan ballan qaadanaa inaan ka hawlgallo annagoo xogta xafidayna halka xumaanta laga soo sheegay ama eelku meeshu yaal waxaan uga digayaa kuwa wali daba jooga oo gabagabada ah oo daba jooga inay xumaanta ka ganacsadaan in aan laba jibaarayno waliba haddii ilaahay idmo bisha tan barakaysan ee bisha barakaysan Ramadaan aan hawlgallada laba jibaari doono annagu ilaahay u dhawaan doona ilaahay idinka tabaaraka wa tacaala ka daalimeyna shaqada iyada quruxda badan haddii cid noogu dhimatay haddii cid noogu dhaawacanto intaba dhiiranaan baan ka qaadaynaa marka wax eebba lagu dhawaado waa waxa ugu sareeya ama ugu qiimo badan weey had iyo gooraale eedaysanayaashii khamrigan runtii way baxsadeen balse ahaatee waa lagu daba joogaa sidaynu caanka ku ahayna daba joog kaliya warkaygu noqon maayay godkoodan u geli doono haddii alla idmo waxaan uga digaynaa inta aysan mawdku uusan ka adeegin ama inta ayagoo foolxun aan maxkamad la soo taagin kuwa ku tashanaya inay ka ganacsadaan inay ka waantooban kara toobadkeena xumaanta ay dalkooda iyo dadkooda ka iibinayaan ciidamada ammaanku waa kuwa u taagan in shacabkooda la shaqeeyaan isla markaana u shaqeeyaan gelin hore iyo gelin dambe iyo saqa dhexe intaba